haweeney ka soo jeeda dalka Imaaraadka Carabta ayaa maxkamadda magaalada Dubai u gudbisay dacwad ka dhan ah saygeeda iyadoo ka dalbanaysa in laga furo sida uu ku waramayo wargeyska Al-Bayaan. khilaafka qoyskani ayaa yimid kadib markii saygeeda uu soo hilmaamay hambeegar ay ka dalbatay in uu markaasi horey ugu soo qaado marka uu guriga u soo socdo. kiiskani ayaa hadda horyaala maxkamadda magaalada Dubai, balse waxa uu hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada ee dalka Imaaraadka Carabta. sida laga soo xigtay qareenada u doodaya ninka la dacweeyay ayaa sheegay in kiiskani maxkamadda magaalada Dubai ay dalka Imaaraadka ay dhageysan doonto bishaani dhexdeeda, go'aan kama dambeysna ay ka soo saari doonto. dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka jira shuruuc markaasi aad u adag oo ay ka mid yihiin in gabadhu aysan fiiri karin taleefanka saygeeda.